ragga iyo dumarku kollay waa lamaane ma kala maarmayaan ragga lama nihin waa raggeeni waa inamadeeni iyagana waxaan leenahay bal dumarka aad u eego u naxariista gabdhaha guursanaysaana dayaca ka daaya dumar caruur haysta oo cid ka mas'uul ah jira wadalla daala dhacaya galabta gabar baa noogu tibi gurigay igu timi waxay ii sheegtay gabar gidaar iyadoo fadhida inama ka soo kaxayeen oo gurigeeda la geeyay oo caruur wadata oo uur leh oo wax ka mas'uul ah la garanay qoladayadii wadani anaga waxaanu iska jecelayn anaga quraan la magacaabo insha Allah waxaan filaynaa in ka badan in la magacaabo kollay Rooma maalin lama wada dhisin dad badan oo aan saaxada ka muuqan jirin baa hadda ka muuqda oo madaxweynuhu magacaabay xaqiiqdii oo xaq lahaa oo aan waligood iman golaha wasiirada iyo ku xigeenada toonna aad waxaan ugu mahadnaqayaa dadkan soo abaabulay xafladan ee ku maamusay gabdhaha la magacaabay gabdhahana waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay xilka ha idinku asturo waxaan kale u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo magacaabay hablahan insha Allah waxaan filaynaa in ka badan in la magacaabo kollay Rooma maalin lama wada dhisin dadkuna waa farabadan yahay dad badan oo aan saaxada ka muuqan jirin baa hadda ka muuqda oo madaxweynuhu magacaabay xaqiiqdii oo xaq lahaa oo aan waligood iman golaha wasiirada iyo ku xigeenada toonna madaxweynaha arrinka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay madaxweyne ku sii dhiiro qoladayadii wadani anaga waxaanu iska jecelayn anaga quraan la magacaabo laakiin ma suurta gelin oo madaxweynihii daldan buu madaxweyne u yahay marka insha Allah inaguna waynu gaari doonaa waynu dul qaadanaynaa waa sugaynaa insha Allah ilaahay idankii waxaan leeyahay madaxweynaha hore u soco dumar badan baa dhibaataysan xaqiiqdii dumar badan baa dhibaataysan dumar badan baa dhib qaba dumar badan baa caruur la daala dhacaya dumar badan baa dayacan dumar badan baa iyaga iyo caruurtii yani isla dhibaataysan yihiin waxaan u soo jeedinayaa hablaha wasiirada ah bal arrinka dumarka in qorshe loo sameeyo caruur iyo dumarkii way isla cadiban yihiin xaqiiqdii maalin walba waxa lagu keenayaa ama aad maqlaysaa dad dumar caruur haysta oo cid ka mas'uul ah jira wadalla daala dhacaya galabta gabar baa noogu tibi gurigay igu timi waxay ii sheegtay gabar gidaar iyadoo fadhida inama ka soo kaxayeen oo gurigeeda la geeyay oo caruur wadata oo uur leh oo wax ka mas'uul ah la garanay waxaan u soo jeedinayaa habaryar milgo kolley arrimaha wasaaradaada ayaa ku shuqul leh bal dadka in loo fiirsado oo dumarka caruurta la daala dhacaya barnaamij loo sameeyo kolley way ku jireen markii horeba wasaaradda laakiin ha ka sii bataan baan leeyahay dumarku waa daala dhacayaan waa way silcayaan xaqiiqdii marka inteena tan maxay ahaaytay ama bariiska karsanaysa ama muuqanaysa haddaynu intii hoose ilowno waa dhibaato marka ha lala socdo dumarka anigoo og dumarku inay iscaawiyaan oo mid waliba cidda la jaarka ay caawiso haddana arrinta ha loo fiirsado baan soo jeedinayaa insha Allah ilaahay idankii madaxweynaha wuu ina magacaabay waxaan rajaynaynaa inuu qayb kalena magacaabo ciddii markaas aan soo bixin raalli ha ahaato maan leeyahay laakiin waa dadaalaynaa insha Allah ilaahay idankii madaxweynuhuna inuu dadaalayo baan ogahay idinkuna waa ogtihiin
waxa kale oo aan maxay ahaytoy halkan ka salaamaya saxaafadda oo har iyo habeen bahawl u taagan ama dalka horumarkiisa ha noqoto ama ha noqoto maxay ahaytoy dhibaatooyinku markay jiraan saxaafaddu aad iyo aad bay u salaaman tahay iyo hablaha kale ee noo caaw maxay ahaytoy inoo joogo ikraaniyo ka mid yihiin iyo sahra aad baan iyagana u salaamaya dumarow barnaamij horta shukri xariiri lanteeda aad u salaamaya oo aan hore isu aqoon abar yar waxaan ku leeyahay hore u soo dhawow hooyana Allah ha u naxariisto walaashay ahayd qof aad iyo aad dalka wax u gashatay bay ahayd oo dadaashay laakiin tii Allah u timi inaguna waa ku daba jiraa ilaahay ha u naxariisto waa ku salaamaya habar yar ragga iyo dumarku kollay waa lamaane ma kala maarmayaan de ragga lama nihin waa raggeeni waa inamadeeni iyagana waxaan leenahay bal dumarka aad u eego u naxariista gabdhaha guursanaysa dayaca ka daaya